ولو أنسو رفعتني نذلنو سور حليني رياض اللينو رمي مقاشي رمية بامية متقاند وفافينيسا دنبي انت ساقو فيران رسولك الحديث قالوا كويري كفى بالمرء كذبا قفك وحابين او وفلا وحكست او مقلو انو شيء مركز ددك ولا لها سوشيال ميديا كجرو او اي حاجة قجفير مركي مقلان بقول كيف سجاشي سجال بين كدراي ايوه انت سلقيا بسو انو كرات سنة فيوز كرات سنة ايوه هاسئل عليها مركب كوباد ولا لها إلهي وحن ويدينينا إنه هنوني هدو هنون لدمع سينه هدو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام قرابو دمان أيامها وحوا شقال اسكا نقضي واسكا عاجسني فيديوهاشي وحوا مالين كستا أفكار شوغدا قبل مقلي جرتين wax allaale iyo waxa ku hadli kartid iyo waxa duubi kartid iyo wax adii kartid ma garanaysid ayamaana fiidiyoala la soo diray gabdhaha asxaabnahay maxay ahayd reer YouTube gabdha kaleeto oo reer Facebook ah ee dhahay maxaa uga hadli laadahay mawaadiicdan way uga aamusan tahay fiidiyogan hadda idin soo geliyay sheekha hadlaaya aan fiidiyogan hortiisa soo geliyay oo uu dhahayo maxay ahayd qofkii iga hadla ma cafinayo sheekhaas anaga hadda kahor waa arkayba personal yaan ku arkay because aniga familkayga waa ree ohaayo familkayga oo dhan waa ree ohaayo ohaayona waa ku arkay waa ogaa inuu reer ohaayo yahay oo masjid meesha ka haayo laakiin the thing is the point is the reality is runta haddii la isku sheego qalad haddaad samaysid oo aad tahay qudwadii dadku ay fiirsanayeen ay dadku daawanayeen ay dadku eegayeen ay dadku kor u fiirinayeen oo qur-aanka ilaahay iyo kitaabkiisana baraya oo sunnadiisana baraya haddaad tahay we supposed to say what we need to say. We supposed to inaan ka hadalno oo nidhaahno sheekhow adiga haddii aad waxaad samaynaysid kitaabka ilaahay ku hadlaaya oo ku dhaqmaaya dadka kale maxay kula tahay dad baa waxay ku leeyihiin waxaan arkay videoga la ii soo diray commentiga dadkii oo dhan ay 80% ay leeyihiin sheekhu maa ka soo jawaabta wax lagu haysto way uga soo hadli la'dahay oo u leedahay qofkii iga hadla ma cafinin iyo maxay ahayd qofkii iga sheekeeyay ma samaynin iyo aakhira u haysta way maa ka soo hadashay sheekhu maa tiraada waxaan been waa dadaa meesha waxay ku soo qorayaan ay leeyihiin sheekh gurigiisu fadhiya waxba waa been been ma aha sheekha beel ku soo baxay anaa wareystay dad oo haay jooga oo familkayga ah anaa dad waraystay oo haay jooga oo ila soo hadlay sheekha gurigiisa beel buu ku soo baxay beel daameenis lacag baa la bixiyey waa la soo fasaxay maxkamadayda loo qabanaya dadka dhan sasa lagu soo sii daaya North America iyo Canada iyo Europe xitaa baasaboorka laga qaada waxa leema travel gareyn kartid maxay ahayd waa la soo sii daynaya oo fasax waa la soo siinaa wuxuu rabo samayn karaa wuusan ka bixi karin dalka un ma aha gurigiis waa aadi karaa masaajidkiis waa aadi karaa meesha rabo waa aadi karaa haddii laga baqaayo travel risk inuu yahayna inuu dhuumanaayana sida habartii ilmaheeda dhibaatada u gelaysay main joogtay ee ilmaha laga qaatay lugta inta baa looga xiraa leeyahay 100 yaardi ma socon kartid marka sheekha maadaama hadda kahor offense hore uusan samaynin gurigiisa wuxuu rabo samaysan karaa wax laan wuxuu rabo qabsan karaa saasaa lagu soo sii daayay laakiin ma aha inuu free yahay waa la haystaa xitaa waxaa lagu haystaa intaasoo 100,000 oo xaaskiisa akaunkiisa uu ku shubay warqadihii oo dhan waa haaya proof waa haaya weli caado oo maaragtay lagu soo qoray newspaperkii meel kasta lagu soo qoray haddaad tagtid website-ka maraykanka offenska dadka galay ayadoo qoran baa waxaa ka helaysaa government site-kaad ka helaysaa warqadihii qoran oo diyaar ah
marka wax been laga sheegayo iyo wax laga ina bacda alithmi danna iyo sheekooyinkaas yaa ma aha waa reality jirta waa wax ku qoran government siteka oo federal offense ah oon dhedheel ahayn marka sheekhow halkaad dhihi lahayd waa qaldam ma qaldamo waa maaragtay waa ilaahay ha layska kee cafiyo dadkii qudwada ii qaadanaya i jeclaana aniguna aan wad ka mid ahaa dadkii aadka u jeclaayee dhallinyarada sheekhyada dhallinyarada ee islaa maasha allah waa dadka hadda noo soo baxaya oo dhaama nahaabiinta garka soo wada yeeshay oo wadaadada isku sheegaya oo diinta islaamka ku dhuumanaya oo ilmaha dhibaataynaya oo dumarka dhibaataynaya oo 10 naagood guursanaya oo gabdhaha yararka marba mid guursanaya marba mid furaaya madba silic cirfaadka ay ku jiraan dadka ku dabagabanaya diinta islaamka oo garka la soo wada baxay adliiskan wuu dhaamaa waa dhalinyaro diinta islaamka si fiican buu maasha allah u sharxaa waxaa islaam wuu dhaamaa laakiin الطمع خسر ما جمع الطمع خسر ما جمع إلهي أرساقت بكسيي إلهي مارت أولاد بكسيي إلهي وحو كسيي علمي إلهي قرآن كيسي بكبري هدنا قد بعس كتورت شيخو ريالتي قد لغو شيغاي ورنتو لغو شيغاي قد بعس كتورت ميلان كوكو حبونين أو مقعا كوكو حبونين oo sumcadaada ku habbooneen baa iska tuurtay waxa anagu sheegaynana ma aha waa reality-ga taagan oo dhacday oo government site-ka magacaaga saddexan iyo address-kaaga iyo wax kasta warqadihii ay ku qoran tahay ma garanaysaa marka ma cafinin iyo sheekaas ma aha adaa bannaanka iskeenay adaa publicly you supposed to be our qudwa waxay tahay qofka dadka aan kugu dayan lahayn baa tahay dadkii aan jidkiisa raaci lahayn baa tahay dadkii waxaa tahay oo maaragtay dhalinyaradu ay ku dhaqmi lahaayeen si u dhaqmaayo but it has to be the other way around oo soomaalida waxay u baratay inaa hal cafiyo dhahda aniga kuma dhahaayo ma idin dhahayo aniga hal cafiyo weligaa hana cafin we are not lying about you beenkaama sheegayno reality-ga sheegayna runta sheegayna marka waxa waaye adigoo ilaahay kuu nimceeyey oo youtube channelkiis wax ka hela oo masaajidkii biilkaa soo galo oo dacwada fidiya oo meel kasta lacag hadda dacwadii lacag bay noqotay meel kasta lagaaga yeer lacag lagaa siinayo ba at the same time section 8 kuwada jirtay raggiina soomaaliyeed waa section 8 ugu jirtaa tell me waa u sheeganay 15,000 iyo wax ka yar income ah ayee adigoo intaasoo 100,000 ku soo gashay ayee yaa waxa waaye reality-ga hala isku sheego reality-ga hala isku sheego sheekhow waad qaldan tahay qaladkaaga qiro waxaad tidhaahdaa cafaa man salaf waxa weeyaan ilaahow dembi dhaafka aan dembiga aan galay nafsadayda aan ka galay faamilkayga aan ka galay ummadda soomaaliyeed aan ka galay oo wax u soo jeedinayo oon qudwada oo ahay ilaahu iga cafi laakiin idinma cafinayo soomaaliyey hala soo fadhiisanin meesha weligaa hana cafinin reality-gan kuu sheegoonaa runta hala isku sheego asalaamu calaykum